boqolaal ka mid ah dadweynaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Boocame ee gobolka Sool oo isugu soo baxay goobo kala duwan oo ka mid ah degmada Boocame ayaa si weyn waxay u taageereen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dadweynaha ruuxayay calanka Soomaaliya kuna labisnaa dhar oo ka muuqdo sawirka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay muujinayeen sida ay ugu faraxsan yihiin madaxweynaha cusub iyo taageerada ay la garab taagan yihiin. odayaasha dhaqanka dhalinyarada saraakiisha ciidanka maamulka degmada ganacsatada ururada haweenka aqoon-yahanada iyo qaybaha kale ee bulshada degmadaasi ayaa muuqaal baahiyaha kalsan uga warbixiyay taageeradooda ku aadan madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo. degmada Boocame ummadda ku joogto oo ku nool waxaan u hambalyeeynaa dawladda Soomaaliyeed oo cusub oo madaxda ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo u hambalyeeynaa waana ku soo dhawaynaynaa waxaan Ilaahay uga baryaynaa kii ku guulaysta oo loogu mahadnaqo oo la isku raaco oo Soomaaliya isu keenay inuu noqdo waa Ilaahay ka baryaynaa aynu soo maray aynu Soomaaliya soo martay ninka ka badbaadiya in Ilaahay ka dhigo baan Ilaahay ka baryaynaa. marka ugu horeysa waxaan u ducaynaynaa madaxweynaha cusub iyo dawladdiisa uu dhisi doono. Ilaahay waxaan uga baryaynaa in uu waafajiyo xaqa oo uu noqdo dawladdiisa iyo asaguba ka Soomaaliya ka saara wixii ay soo martay ama haddaba ku jirto. Ilaahay saasaan u weydiinaynaa uga baryaynaa anigoo ka hadlaya degmada Boocame waxaan leenahay hambalyo إلهي ما محله محل وين إلهي بأسكله محل كلو أنو محل غينا وحاله لذوينها صوماليات الدولة فدرالك اللي بدأ يقوله وبرلمانك الصومالي قولها سندك يقولها برلمانك أي صوماليين وصوحولين وربطانكي ummadda Soomaaliyeed ka turjumaya ayaanu mahadnaqaynaa waanu leenahay madaxweynaha guuliga gobolnimo ayaanu ku rajaynaynaa Ilaahay xilka lagu doortay ha kugu guuleeyo. waxaan ka rambaliyay saraakiil gacal uga diraya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. maxamed waxaan leeyahay guulayso waad guulayso waxaan kala ummadda Soomaaliyeed u sheegaya waray farkali fool ma dhaqdo waa in la shaqeeyaa madaxweynaha haddii la shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed la shaqeeyo wax uu qabanayaa ma jirto waxa la shaqeeyo madaxweynaha Ilaahay waxaanu ka baryaynaa Ilaahay wuxuu bari xilka inuu u fududeeyo kii ku guulaysta Allah ka dhigo xilkiisa ku guulaysta وتاجرت وحدة سيرنا مدحوينها الله محمد فرماته وحنو شيغينا وعاملنا هي قوليسو مeel walba walaga duceeyo guulayso waxaan maanta ku taaganahay anagoo reer Boocame gaar ahaan gobolka Sool waxaan leenahay madaxweynaha Farmaajo waanu taageersanay waanu qaadanay natiijada baarlamaanka Soomaaliya oo ay muujiyeen geesnimadooda Soomaalinimo guul bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ugu hambalyeeynaa lambar 1 baarlamaanka Soomaaliyeed oo cusub oo wixii loo yimaday sida wanaagsan oo xilkasnimada uga soo baxay doortayna cidii ku haboonayd oo Soomaaliya meeshay maanta taagan tahay ka saari lahayd. General Adam Muuse Allah u naxariisto eheladii iyo qaraabadii ka geeriyoodeen samir iyo iimaan ka siiyo waxaan madaxweynaha cusub ee la doortay ee Farmaajo aan u sheegaynaa in Soomaaliya wada dooratay Soomaaliyana sidoo ballan qaaday inuu u mideeyo Soomaaliya ha noolaato. waxaan marka labaad u mahadcelinayaa dawladdii uu madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo iyada lafteedu soo gaarsiisay marxaladan maanta niyaayirada la keentay oo ka soo shaqeysay wax badan baa marka labaad u mahadcelinaya. waanu halka taasuugu dareennaa tireeyale eelkii iyo Soomaaliyeed oo ka baxay Adam Muuse madaxweynihii hore Puntland inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. anigoo magacaygu uu yahay حاج عبد الرحمن علي بادية
kuna sugan degmada Boocame oo ka tirsan gobolka Sool haddaanu nahay shacab weynaha ku dhaqan degmada Boocame waxay hambalyo noo tahay iyo damaashaad iyo rayn maalintii labaad markii aanu maqalnay in loo doortay Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo deegaanka degmada Boocame si gaar ah looga yaqaan ilaa yaraantiisii iyo ilaa heer ra'iisul wasaare iyo maanta uu yahay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed. marka laga yimaado degmada Boocame oo ay maanta ka dhacday taageerada madaxweyne Farmaajo ayaa haddana waxaa jira deegaano kale oo weli ay ka socoto taageerada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana inta badan dadku ay muujinayaan aragti ka duwantii horay looga qabay Soomaaliya waxayna sheegayaan in ay muuqato ifafaalo cusub oo muujinaysa in ay soo noqonayso niyaradii ummadda Soomaaliyeed. وعد فتاة عبد الله كلسن TV دقمة Boocame.